waxaa si weyn u muuqata in siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud aysan ahayn mid fadhida oo leh qorshe dhow iyo qorshe fog midna inaysan ahayn ayaa si cad maanta bannaanka u taalla hal asbuuc gudihiisa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu marna inkiro heshiiskii uu la galay Masar isla markaasna haddana uu raaligelin ka bixiyo ayaduna waxay muujinaysaa runtii habacsanaanta iyo isku dhaxyaaca iyo qorshe la'aanta ka dhex muuqata the foreign policy-ga madaxweynaha ama siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud suurtagal ma aha macquulgalna ma noqon karto in hadalkii uu ku hadlay asbuuc ka hor afhayeenka filla Soomaaliya ee uu ku yiri madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Masar marna kama aysan wada hadal biyaha Nile-ka inuu hadalkaasi uu ahaa hadal iska soo malawaalay afhayeenku marna suurtagal ma xogaha aan helayno iyo aqliga saliimka markii la isku daro wuxuu inoo sheegayaa in hadalkaasi uu ahaa hadal madaxweynaha ka yimaaday oo lagu yiri afhayeenka inkir markii hore heshiiskii ee la soo galay Masar isla markaasna markii dambe tan lagu yiri raaligelin ka bixi waa laba message oo kala duwan labaduba afhayeenku uga imaanayo dhanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud marna macquul galma inuu afhayeenku iska soo malaawaalay sidaana uma shaqeeyo afhayeenka filla Soomaaliya waxaan suurtagal ahayn waxaan la xaqiri karin marka in isbeddelka ku yimid dawladdeena iyo madaxweynaheennaba uu yahay culays ay saartay dawladda Masar waxay ka mid tahay dawladaha Soomaaliya markii laga hadlayo arrimaheeda saameynta iyo maxaa la yiraahdaa faragelinta iyo sida ay dawladaha noogu dhex milan yihiin dawladaha ugu culayska yar baa lagu tiriyaa Masar waxaa jira ilaa iyo 5-6 dawladood oo kale oo Masar ka weyn markii laga hadlayo saameynta ay Soomaaliya siyaasadeed ay ku leeyihiin haddii marka Masar oo sida ay saameynteeda u hooseyso ay madaxweynaheennii ay sida asbuuc gudihiisa u bedeshay waxaanu isweydiin karnaa maxay dawladaha kale Soomaaliya ku cadaadin karaan siday u bedeli karaan culayska ay saari karaan xasan sheekh maxamuud muxuu noqon karaa waa su'aalo aynu baahnaa inaynu isweydiino waxaa kaloo runtii muruga ah oo cabsi cusub keenaysa ay ummadda ay runtii ay dib ugu laabanayaan heshiisyadii kale ee ka horreeyay ee dawladaha kale ay galeen biyaa madaxweynaheena lagu cadaadiya waayo dawlado kale oo inooga saameyn badan buu tagaa madaxweynuhu wuxuu tagay Imaaraadka heshiiskii la galay qayb badan oo kamid ah waa la qariyaa laakiin warbaahinta reer galbeedka qayb ka mid ah ayaa soo bandhigtay in Imaaraadka Carabta gacanta loo geliyay dekada Kismaayo iyo xero ciidan in la siiyay madaxweynaha laakiin wuu qariyay Kenya oo sidoo kale kamid ah dalalka ugu saameynta badan dalkeena ayaa madaxweynaha u yeertay ka saxiixday wax loo yaqaan heshiisyo ay ka mid yihiin qaadka maxaa qarsan maxaa kale lagu cadaadin karaa Turkiga aynu ognahay awoodda ay leedahay sida ay dalkeena saameyn ugu leedahay oo aad hadda moodid inay runtii aragtidii ay naga haysatay ay wax ka bedeshay walow aan helayo xogo kale oo sheegaya in dawladda Turkiga ay joojisay tababaradii ay ku sameynaysay maxaa loo yaqaan xerada ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho kadib markii masaaridu ay jaajuuseen ama ay ku sameeyeen wax loo yaqaano ay spy gareeyeen arkaysa soo marka heshiisyadii kale iyo dawladihii kaleeto ee inooga saameyn badnaa sida Kenya Imaaraadka dawladda Mareykanka Ethiopia iyo dawladaha la midka maxay madaxweynaha ku cadaadin karayaan waa meesha runtii murugada leh oo dalkan hadda qof kasta wax garanaya oo uu ka fiirin karayo iska daa Masar kuwan kale maxay nagu cadaadin karaan Masar waa kuwaas nooga awood badan maxay Imaaraadku nagu cadaadin kartaa maxay Ethiopia nagu cadaadin karayaan Kenya maxay nagu cadaadin karayaan dawladda Mareykanku maxay dalkan ku sameyn kartaa waa su'aashaan u baahnaan ka fikir maanta waxa ay dhan markaad soo xooriso waxaad arkaysaa runtii wadada ay dawladnimada Soomaaliya ay cagta saartay inay tahay waddo mugdi ah oo ay adkaan doonto in Soomaaliya markaas laga saaro arkaysaa haddii Masar ay nagu qasabtay in raaligelin bixino kuwa kale meesha ay nagu qasbi karaan iyo tartanka ay ku jiraan dawladahani iyo danta ay naga leeyihiin halka ay nageyn karto waa halka mugdiga oo qof walba uu arkayo halka ay nagu soo waa maxay aragtida aad ka haysataa adigu marka